marka hore isbedel wadanka ka dhacay isbedelkaas waxaan u rajaynaynaa ilaahay subxana wa tacaala waxay waajibkana saaran waxay tahay inaan isbedelkaas aan u duceyno dadka maamulkaas qabanaya ilaahay subxana wa tacaala inuu waafajiyo wixii xaqa ah maxaa yeelay wadanka marxalado badan oo soo maray waxaa caadanoo noqotay mar kasta inaan dhowr jeerna hadda xalaqooyin badanaan ka sheegna halkan inay dadka soomaalida dhanba ay kursigaas ay wada raadinayaan taasna markaas ay sababi karto beledka wadanka inuu hog ka dhaco marka waxaa nagu haboon mar kasta inaan isku duceyno kadibna aan isku naseexeyno marka waxaan u duceyneynaa maamulkaas cusub yimid wixii khayrka ilahay inuu waafajiyo dabcan intaan xalaqooyinka intaan la dooranin doorashada si aad la socotaan halkaana waxaan ka dhihi jirnay ilaahay subxana wa tacaala wali umuurana khiyaarana dad khayrka xukunka noogu dhiib ilahay asaga garanayo waa laga yaabaa inuu khayrka ku jiro kuwan haddii ayga naftooda ay herqarabin marka khayrkaas aan ku duceynay ayaan weli kusii duceyneynaa waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacaala ilaahay towfiiqdaas ummadaas ka maamulkan cusub oo ah muddo 4 sano wey waxay tahay maal beri ayay dhammaanaysaa mid ummadda khayr u wada ilaahay subxana wa taala inuu ka dhigo ay ummadda ay ku liibaanto ilahay inuu ka dhigo sidoo kale sida intilaaqan min xadiiskii nabiga alayhi salatu wasalaam man lam yashkur الnaas laa yashkur illah dadkaan dadka u shukrinin ilahayna kuma shukriya waxaan halkaan isna u mahad celinaynaa madaxweynihii hore oo xilka si nabad ah ku wareejiyey qofka muslimka ah waxyaabahan ka baqaynay oo mar kasta aan ka digayno waxay ahayd ummaddaas inay fawda ay gasho oo cala alaqal waxyaabahan ku faanayno oo africa aan kaga duwannahay oo carabta aan kaga duwannahay madaxweyneyaal isbedela hadda ka hor halkan waan ka sheegay waxyaabaha soomaaliya asalka u ah oo dadka laga yaaba inay wax yar agtooda ka yihiin in ballanta la dhigtay oo ah in 4 sano kadibba qof la doorto waa jaanib iijaabi ah ama waa mid oo positive ah ama wax aad u wanaagsan weeye oo ilaahay na siiyey nicmay ka mid tahay in qof hoggaan hayo qofka kale si nabad ugu wareejiyo lagama helo meelaha inqilaabiyo iyo xoog iyo waxbaa dhaca nicmadaas dadka ma dareemi karaan amniga istiqraarka oo xulka lagu kala wareego balse qofka naftiisa waxay keenaysaa inuu ogaado inuu xilkan uu ku ammaano ay ku tahay maanta kan loo dhiibay beri 4 sano kadibna laga qaadi karo oo ilaahay qofka la doori kara kan joogana sidoo kale uu ku qooqin uu ku kibrin wanaag weyn weeye halkaa waa waxyaabahan reer galbeedka ee amniga istiqraarka ku heleen waa xukunka inay marba fatra qof ay ku wareejiyaan bini aadanka gaf waa ka dhici karaa xaakimka waa ka dhacaya ra-iis farmaajo waxna waa qabay waxna waa ku cayaaray sida kan laftigiis looga filinayo waxna noo qabto waxna u ka cayaari karo laakiin annaga shacbiga ah waxaan la doonayaa wixii lagu cayaaray inaan ka saxno wixii kale uu ku wanaajinay in lagu mahad celiyo sidoo kale waxaa loogu mahad celinaya ra-iisul wasaaraha Roble xaqiiqatan wadanka asagoo meel qar maraya qofka hadda xaqiiqada dadka ay sheegin waa dhibaato weyn wadanka ayuu la kala taagan yahay oo ciidamo la isku soo baxsaday ayaa lagu wareejiyey doorashada arrimaheedii meel fiican uu dhigay maanta asagana waxaan leenahay jazaa allahu canka jazaa allahu ilaahay ka abal mariyo inaad ummad kala badbaadisay weli waxaan ugu sii mahad celinaynaa asagoo aan soo sharxin waan dhihin anigana intaan arki jirnay ra-iisul wasaare kasta oo madaxweyne soo la joogo hunguriga gali jiro wuxuu dhihi jiro waa sharaxaya laakiin Roble wuxuu ka hormariyay danta naftiisa qofka asoo damaca bini aadanka leh hadduu yiri isma sharaxay maxaa dhacay hadduu is sharaxi lahaana doorashada nasiih ma ahaan lahayn ama cala alaqal qofka naftiisa ayuu u eexan lahaa oo ilaa asaga hooshii wada lagu aaminay maxaa waxa looga soo qaaday farmaajo waxay ahayd inuu mucaaradka ay u sinaadaan doorashada oo intaasna waxaan ka laga talinaya maslaxa dadka inay waaqac asaas u ogaadaan wey marka asagana waxaan leenahay jazaa allahu canka maxaa yeele maanta ummadda cala alaqal istiqraaray ku jirtaa waa kuwaas madaxweyneyaasha isku mahad celinaya waa kuwaasa isbooqanaya oo madaxtooye iskuul tagayo waxaan leenahay ayagana jazaa allahu canhum inay ummaddaas loo tiro intaas markaan ka soo baxo oo ahayd tahniyada iyo ducadii
iyo mahad celintiiba ikhwaani naseexada caamata almu'miniin marka hore waxaan u naseexaynaynaa siduu nabigu sheegay alayhi salatu wasalam a'imatu almuslimiin waxaan leenahay madaxweyne maxamed xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay ittaqi allaha fi raciya dadkaas ilahay kaga cabso mas-uuliyaddan ilaah kuu dooray dhowr jeer halkan waxaan ka sheegnay ilahay mulkiga saa bixiya lacag nin leh ama lacag nin bixiyey ama ninay qabiil wadato nabiga alayhi salam xadiis wuxuu ku leeyahy low ijtamacat اlinsu waاljinu calى an yanfacuuka lan yanfacuuka ila ma qad kataba allahu laka ilaah baa kuu qoray shalay jaanisaa lagu siiyey waa lagaa qaaday waa laga yaaba gaf aa gashay in lagaaga qaaday oo ilaahay kusoo canaantay oo maanta lagugu soo celinayo ummaddaas waa ummad muslimiin ah waxa ugu muhiimsan ilaalinaysa diintooda ha ahaato waxa ugu muhiimsan maxay diinta ilaalinteeda wadanka ilaalo ah dadaa maanta dhan waxay ka fikiraan kaliya wadanaa la gatay iyo waxbaa la gatay wadanka waxaa la gadanaya markoo diin ay jirna wadanka la gadan karaa laakiin ummadda intaa diin lagu haayo waxaan leenahay ittaqi illah dadka ilaahay subxana wa taala ilahna kugu garab kale waan kuu ducaynay laakiin mas-uuliyaddaas ugu maxamuleeda waa qisi iyo nadaama uu yiri nabiga alayhi salatu wasalam yowma alqiyaama wuxuu yidhi waa shallaay iyo waxa waaye uu yidhi iyo khasaaro waxaa kusoo aaday ummad oo dhowr jeer halkan ka dignay annahana war siyaasadda dumarka iyo caruurta iyo qolooyinkaas social media ha laga ilaaliyo siyaasadda kubad ma aha waa dad caytamaayo oo cay la baray 5 sano caytamayey ayaa madaxweyne u tahay ugu madaxweynahoodaa tahay kooda mucaaradka ah kooda xun kooda qamrada cabaya kooda dhan ummadaas mas-uuliyada kaa saaran diintan waa ka weyn tahay wadankan waa ka weyn yahay koox yar oo maamul gasha koox waa ka weyn yahay wadanka dadka dhan inaa u sinaato ilaahay cadaaladaas oo ku weydiiyo ayaan kugu dardaarmaynaa tafaasiisha ma galayna dadaa maanta dhan waxay ku leeyihin madaxweyne loo naseexay waxaas ha qabto waxaas qabto tafaasiishaas oo kale waa laga yaabaa inaad ku wareertidba maanta dhan ummadda nin kasta doo warqada kuu soo qoro ku yidhaha naseexan ku wadaa ku naseexan ku wadaa waa laga yaabaa inaad wareertid naseexadaas oo kale ma banaana maxaa dhacay waxaad leedahay waa leedahay mustashaariin aad leedahay hadday amni tahay dadaa kaala taliyo hadday ciidan tahay dadaa kaala taliyo kuwaas aan u dhaafaynaa mas-uuliyadda adiga lagu weydinaya laakiin dad kula taliya waa haysataa laakiin dadkan kale walidaalika dadka waxaa la yaaba xataa dadka la taliyaasha waxaa ku jira kuwa 5 sano ku dhahay tuugaa tahay maantana ku dhahay waa kuu naseexaynayna waa laga helaya marka waxaa laga yaaba kalimatu lxaq yuraadu bihi lbaatil inay tahay laakiin adiga uu dadka wicaa u naqay qof qaadi kara naqo qasab maaha inaad naseexo kasta aa qaadatid aa dhegeysatid maaha intaas mararka qaarkood waxaad ogaataa dadka hadda kugu soo cararayo waa dadka dad manaafic rabo wey manaaficda dadka raba iska ilaali oo ah manfaca inay rabaan xataa qaarkood naseexada markay gudbinayan waxa laga yaba naseexadaas manfaca inay daba socoto inshallah saasaan ku yidhi ama ku rabo hadhow inuu kugu hadal siiyo oo yidhah saasaan iri oo lillahi ay ka ahaynba waxaasoo dhan dulqaadkeeda ayaa laga raba anagana waa kugu ducaynayna ilaahi subxana wa tacaala inuu kuu saqaro waxaan u degayaa caamatu naasi nabiga alayhi salatu wasalaam waagoo dhintay abubakar aa qaadan waaye nabigu waa dhintay cumar radi allahu canhu ayaa qaadan waayey nabigu waa dhintay ilaa uu nabigu abubakar uu ka koro mimbarka uu yidhaaho man kaana yacbudu muxamadan fa ina muxamadan qad maat ninkii nabi maxamed caabudi jiro maxamed waa dhinta uu yidhi waman kaana yacbud allaha fa ina allaha xayun baaqi markaasuu aayadda wamaa maxamedun ilaa qad qalad min qablihi rusul afi imaata u qutil inqalab aayaddaas oo ku dul akhriyey wuxuu maxamed waa qof aa dhintay waxaan leeyahay war qof jeclaysi farmaajo khayr allaha siiyo abaalka weyn oo ummadda gal waxay tahay xulku inuu nabad ku wareejiyey xaqiiqatan maxaa yeele nin kasta kursiguu jecel yahay laakiin ma muujin taas waxaan leenahay war rajiimku waa baxaya laakiin wadanka waa baaqi wey madaxweyne kasta waa baxaya ama tii rabaa u dhiman karta waa dhiman karaa laakiin waxa soo haraya wadanka wey haddaad muwaadan ahayd war wadankaas u nax ka hadal si laiskugu keenaya quluubta war qabiilka iyo quranka iska dhaafa xukunka haddaad u qabtid qabiil hebel inuu xasan siiye ma siinin ilaaha siiyey haddaad u qabtid koox hebel inay xukunka siis ma siinin ilaaha siiyey iimaankaaga dib u noqo maantana waxaa arkaysa dad nacaraadka jaahiliyada bixinaya aan ku aragna facebookyada iyo nacaraadka jaahiliyada qabiil hebel waaye kaas u kaa mid dhahaya aniga hebel hadoo xukunka gali waaya islaanteydan furay mid dhahaya waa isdilaya ay diin hada soo muslim ihid bas islaamnimada meel iska soo dhigtay waxaa kale ittaqi illah wadanka waxa weye maalin kasta waa isbedelaya cajaladaas taxarukaasaana faa'iida ku jirtaa intay cajalada ay wareegeyso ugu faa'iida lagu jiraa maalin kasta halkaan ka sheegi jirnay
waxaan ka soo jeednay qof meel iska fadhiyo oo ku qooqa ayaan ka soo horjeednay. waxaan dhahayna hala galo doorashada si kasta lagu galo. waxaan sugaynaa hawsha u taal dowladdan ugu muhiimsan waxaa weeye inay doorasho cod gaarsiiso, ilahay u sakhiro. hadda anaga ku kaalmayn marka oo hadda anaga cahaytin iyo goboleysi aan bilaabno bir haddana dad bana kusoo naqanayn adaan saba u naqanayo kuwa hadda waxaa hadhow maamulka keliya laguma eedeynaya shacbina eeday lahanayaan. aan ka kaalmayno si aan u gaari lahayn doorashadaas oo xurta ah ummadda ah aan isgarab qabsano. war walaalaa nahay muslimaan nahay taaliiful quluubka waajib ay nagu tahay. munkar markaan aragno waxbaan qaban karnaa dhihi karnaa qofka munkarka jooji, laakiin intaan munkarka aragno madaxweynihi hadda xilka lagu wareejinaa dad iska kacsan yihiinba oo nacaraad jaahiliya bixinayaan hadalladii soo qorayaan. xataa dad badana odayaal u malaynayna hadalladii soo qorayaan waa la yaabnay. war saas ma aha siyaasadda. walidaalika siyaasadda kubad maaha ikhwaani. qalbigaygaa jecel xubiib malaayiin malaayiin waxa la ya akhi maradona iyo messi iyo boqolaala malaayiina jecel. cawaatif allah taas cawaatif wadan lagu hogaamin karo. guriga xataa cumar bin khataab wuxuu guriga xub xataa inuu ku socdo ma jaceelka guriga qasab ma inuu ku dhisnaado. siyaasadda sira leedahay waxaan leeyahay waxyaabaha facebooka laga keenayo war ummadaas u naxa hadday gaalo ka dambaynin oo ummadii la isku dara la rabin oo aan la rabin dib in la celiyo wadanka waa heraya dadkana madaxdan way tegayaan kan hadda jooga tagay kii hore waa tagay kuwa ka hore ka tagay